Assalaamu calaykum. Daawada kibirka waxa uu ka mid yahay xanuunada nafsiga ah ee qofka bini'aadamka ah ku dhaca, kaas oo bulshada kala faquuqa ama ku abuura nacayb iyo kala fogaansho, keensada dabaqado nololeed oo yareeya is-caawinta, is-garabsiga bulshada iyo is-jacaylka muwaadiniinta, kaas oo saameeya wadaagga horumarka ee bulshada. Waxaa suuragal ah in kibirku qofka u diido xaqa iyo diinta, in uu ka fogeeyo cilmiga iyo aqoonta, in uu mudnaanta bulshada liido ama u arko dad ka hooseeya oo aan waxba weydiin. Waxaa dhacda in ay qofka qarqiso annaaniyadiisu oo uu samaha iyo wanaagga dhibsado oo ka dheeraado. Kibirka iyo isla weynidu guud ahaan lama ammaanin, waxaana kasoo horjeeda is-dhuldhigga oo ah inta badan tilmaanta dadka wanaagsan. Adduunyada waxaa soo maray rag fara badan oo kibir iyo isla weyni ay haadaan ka tuurtay, qaarba ay sheegteen ilaahnimo sida Fircoon oo kale. Taasina waxay na tusinaysaa kibirka iyo cirib xumada laga dhaxlo, waana kii abwaankii Soomaaliyeed gabaygiisa ku lahaa "Adaa duniba kaligaa leh buu koofil eersadaye, kashiisaba may gelin wiilalbaa keebka kuu qabanne, ragow kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado." Wuxuu kibirku hogaamiyaha u diidaa inuu dadkiisa dhageysto, waxaanuu ku qaadaa tallaabooyin cawaaqib xun oo marmar qarankiisa halaaga. Inta badanna kibirku waxa uu haleelaa madax iyo qof ladan oo saameyn ku leh bulshada ama dadka uu ku dhex nool yahay. Sidaa daraaddeed ayaana keenta waxyeellada iyo dhaawaca horumarka bulshada. Guud ahaan, qofka laguma qiimeeyo sida uu ugu jajaban yahay ama ugu gacanta fudud yahay madaxda ka sarreysa, ee waxaa lagu qiimeeyaa sida uu ula macaamilo dadka ka hooseeya. Taasna ayaa ah halbeegga lagu cabbiro xil-gudashada mas'uuliyadda. Daawade, kibirka Ilaahay ha inaga hayo ee waxaa dabiiba Alle ka cabsiga, cilmiga, waayo-aragnimada, koritaanka garaadka, iyo bisaylka qofka bini'aadamka ah. Wassalaamu calaykum.